نبي الله إبراهيم عليه السلام دعاء سنية إلهي سبحانه وتعالى برية وحبضن بو إلهي ويديستي لكن وحيابها إلهي ويديستي هل قضب أو كمذا أي حلقة دين يخص يمسو قادان عليه وجعل لي لسان صدق في الآخرين إلهي صدق لو حد قدكتها dad yoga iga dambeeya aniga miday wax wanaagsan ka sheegaan miday hadal wanaagsan iyo ammaan fiican ka sheegaan qofka muslimka ah amaanta ma jecla laakiin nabigu wuxuu jeeday calayhi salaam ilaahu war xun aan la iga sheegin wanaag iyo khayr mooyaane ilaahu aan wax kale la iga sheegin waxaa muhiim ah inaynu ku talagalno oo qaacidooyinka nololeed ee aynu leenahay ay ka mid noqoto sumcad wanaagsan inaynu ummadda ku dhex leenahay hadda waayadan dambe ee baraha bulshadu waxa weeyaan xarkaha goostay dee taasi macno ma samayso dadka ay ku xidhayeen waa qaaqlayaasha waa dadka wax caaya waa dadka wax ceebeeya waa dadka ceebahooda dabagala waa maarta dadka qabyaaladda ka shaqaynaya ka sheekaynaya haddii ilaahay xumaanta ka hadlaya bal fiirso laakiin sida sharaftu ku jirto oo karaamadu ku jiro oo milguhu ku jiro oo maamuusu ku jiro oo bilnaantu ku jirto oo boqornaantu ku jirto waxa weeyaan qofku inuu ka shaqeeyo sharaftiisa iyo sharafta dadka kale inuu ka shaqeeyo inuu magaciisu ka marakaco markhaati ka noqdo wanaagga khayrka waxa fiican sharafta isagoo kaliya maahe dadka oo dhan inay saa noqdaan dadka inuu ka caawiyo oo uu ka kaalmeeyo inay wanaagsanaadaan inay noloshoodu nolol karaamo sharaf la ay tahay ceebta inta laga carari karo in laga cararo inta la yareyn karo la yareeyo marka saaxiibayaal noloshaada marna ha u ogolaanin inay sharaf darro ku dhacdo in qiimaheedu hooseeyo ha u ogolaanin intaa in laagna ha leegaado waxa ugu yar ha noqdee wax maqaamkaaga iyo maamuuskaaga hoos u dhigayo hadal ha noqdo kaftan ha noqdo asxaab ha noqdaan cid alle ciday doonaan ha noqdaan waxaas wuxuu doona ha noqdo marba haddii maqaamkaaga iyo sharaftaada uu hoos u dhigayo ka tanaasul hadduu qof yahay ka tag oo ka dheerow hadduu hadal yahay iska daa hadduu kaftan cid kale kaaga iman yahay ha aqbalin hadduu xukun lagugu xukumo oo wax weeyaan lagu yiraahdo yahay ka hadal oo dhowr waxa ma ihi la fiirsada marka ha ogolaanin wax kasta oo sharaftaada meel ka dhac ku ah sharaftaadu waa naftaada wanaagsan waa ilaahay salaam